waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida khudbada aan xilligan ku eegi doonana waxa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay xiisada maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo markaasi ku guuleystay in wax ka yar 48 saac uu iska saaro ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya yaa ku sugan xiriye magaalada Gaalkacyo Istanbul iyo waqooyiga magaaladaasi maxaa ka jira in ciidamada BSF ay dib ugu laabteen waqooyiga magaalada Gaalkacyo xerada Istanbul ee halkaas ku tiilay iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa dhaqdhaqaaqyada ka soconaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xarunta ganacsiga maamulka Puntland odayaasha dhaqanka gobolka Bari oo markaasi wada dadaalo markaasi lagu doonayo in lagu xoojiyo ammaanka magaaladaasi iyo sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa qodobada kalena waxa markaasi daawadayaal qayb ka noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya oo wada dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyadoo doonaysa in markaasi guluf dagaal ay kula wareegato deegaano gobolka Hiiraan ka tirsan oo kooxda Al-Shabaab ay ku sugayeen ciidamo fara badan ayaa markaasi awaamirtii ugu dambeysay la siiyay wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaa maalmaha soo socda la rajeynaya inay gaaraan gobolka Hiiraan wararkii ugu dambeeyay iyadoo la doonayay in kooxda Al-Shabaab laga saaro deegaano ay kamid yihiin degmada Maxaas iyo sidoo kale deegaanka Teedaan ay dhawaan la wareegeen dhinaca kale waxaan eegi doonaa dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta markaasi saxiixday mashruuc lagu hirgelinayo wadooyinka dalkana lagu dhisayo iyadoo markaasi ay ku jirto maamulka Somaliland oo khilaaf adag oo kala dhaxeeyo dawladda federaalka Soomaaliya qodobada iyo waxyaabo kale ayaan ku eegi doonaa muuqaalka soo dhawaada daawadayaal waa maalinimo Jimcaha taariikhdu ku aasaysan tahay 7 bisha 8 Agosto sanada 2026 aynu ku horeyno maamulka Puntland iyadoo markaasi dagaalo adag ay ka dhaceen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midowga dhanka Puntland ee maamusho ayaa markaasi 48 saac wax ka yar waxa ku guuleystay Saciid Cabdullaahi Deni inuu banaanka isaga saaray ciidamada BSF ee garabka helay dawladda federaalka Soomaaliya oo ay markaasi taakuleysay Mareykanka iyo sidoo kale dawladda dhexe federaalka Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni oo markaasi howlgal ka dhacay magaalada Gaalkacyo ciidanka booliska maamulka Puntland ay markaasi ku sheegeen in uu mid looga hortagayo kooxaha amniga lidku ah waxay sheegeen inay ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo gobolka Midowga xaradii BSF ee Istanbul ee waqooyiga magaaladaasina waxa la wareegay ciidamada maamulka Puntland wixii inta ka dambeeyay xalay waxa soconayay dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa markaasi maamulka Galmudug dhanka Galmudug maamusha ku sugan waxaana markaasi halkaas ku sugan Maxamuud Diyaano taliye ciidanka BSF ee xerada Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo dhanka Puntland ee maamusho wixii inta ka dambeeyay BSF waxay doonayeen mar kale ay dib ula wareegaan xeriyo tan markaasi in ka badan 20 sano ay ku sugnaayeen ayayna markaasi dib ula wareegeen ciidamada maamulka Puntland magaalada Gaalkacyo xaaladeedu way degan tahay odayaasha dhaqanka gobolka Midowga ayaana ka shaqeynayeen mar kale una dagaal una ka dhaceen magaalada Gaalkacyo gobolka Midowga ee maamulka Puntland dhinaca markaasi maamulka Puntland maamusho waxaana markaasi la soo warinayaa in kulamo kala duwan ay odayaasha dhaqanka halkaasi ay ka wadaan sidii xiisada loo dejin lahaa isla markaana wada hadal loogu dhameyn lahaa arrimaha ka taagan magaalada Gaalkacyo iyadoo markaasi dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa markaasi dhanka Galmudug ka socda ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay doonayeen inay dib ula wareegaan xitaa waa markaasi xerada Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo dhanka Boosaaso xarunta ganacsiga maamulka Puntland hadii ay eegno Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu ku guuleystay xariye 20 sano ee BSF ku sugnaan oo ku yaala bariga magaalada Boosaaso oo ahayd taliskii ugu weynaa ee laga xukumi jiray ciidankan sida gaarka markaas uu tababaran ee lagu magacaabo BSF wuxuu ku guuleystay inuu banaanka u saaro waxay gaareen magaalada Qardho ee Cariga iyo magaalada Laascaanood ee maamulka waqooyi bari waxaana haatan halkaas ka soconaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay wadaan ciidanka maamulka Puntland oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Boosaaso iyo sidoo kale magaalooyin kale Saciid Cabdullaahi Deni kulan oo magaalada Garowe shalay kula qaatay golaha wasiirada maamulka Puntland waxa uu markaasi uu kala hadlay in markaasi la maxkamadeyn doono ciidamada ama markaasi saraakiisha lagu qabtay dagaalka markaasi ka dhacay magaalada Boosaaso ama markaasi howlgalkii laga fuliyay magaalada Boosaaso iyo sidoo kale magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midowga Saciid Cabdullaahi Deni xukuumaddiisu waxay u qabatay 24 saac in ciidamada dawladda ay isaga baxaan deegaanada ay markaasi kaga sugan yihiin maamulka Puntland hase ahaatee waxa markaasi hadalkaasi u jeediyay Saciid Cabdullaahi Deni magaalada Garowe ee gobolka Nugaal oo markaasi uu ku guuleystay inta badan magaalada markaasi magaalooyinka Puntland maamusho ay isaga baxaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee garabka ka helaya markaasi ciidamada BSF ee garabka ka helaya dawladda federaalka Soomaaliya Saciid Deni xukuumad madax banaan ayuu maanta u talinayaa wuxuuna ku guuleystay in ciidamadii dawladda ee markaasi banaanka laga taakuleeyay oo iska saaro waxa dhinaca kale
kale magaalada Garowe ku sugan duleedkeeda General Jimcaale Jaamac Takar taliyaha qaybta 54 ee militariga Soomaaliya oo isagu ciidamada danaba hogaaminayo dowladda federaalka Soomaaliya mushaar siiso duleedka magaalada Garowe ayuu ku sugan yahay waxaana markaas la tilmaamay Saciid Cabdullaahi Deni oo ku amray inuu soo dhiibo waxaana markaas la soo warinayaa in xilligan dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka soconayaan magaalada Garowe caasimadda Nugaal ee maamulka Puntland waxaa markaas taliyaha qaybta 54 General Jimcaale Jaamac Takar wada hadal oo ku soo galay magaalada Garowe oo diyaasha dhaqanka gobolka Sool aan raado waa markaas gobolka Nugaal ay ka dambeeyeen inuu gaaro magaalada Garowe gobolka Nugaal ciidamada danaba ayuu hogaamiyaa taliyaha qaybta 54 ee militariga Soomaaliya waa General Jimcaale Jaamac Takar lama oga in Saciid Cabdullaahi Deni iyo mar kale taliyaha qaybta 54 ee ciidamada xoogga dalka General Jimcaale Jaamac Takar ay saarki doonaan balse xiisadu haatan way degan tahay Puntland inta badan deegaanada maamulkaasi iyada gacanta ku hayso dhinaca gobolka Hiiraan hadii aynu eegno militariga Soomaaliya qaybta 22aad ayaa wada dhaqaaqyadii ugu dambeeyay ku doonayaan inay dib u la wareegaan deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale degmada Maxaas iyo deegaano kale oo ay markaas ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaanka Teedaan oo toddobaadyo ka hor la wareegay iyo sidoo kale degmada Maxaas oo markaas sanadkii 2025 bartimeedii la wareegeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale degmada Moqokore ay ku sugan yihiin waxaana militariga qaybta 22aad ee markaas ciidamada loo yaqaano dadka deegaanka ee macuusleyda ay wadaan howlgaladii ugu dambeeyay oo ay ku soo afjarayaan dagaaladan ka soconaya gobolka Hiiraan xilligan waxa uu galay wajhi kale doorashooyinka maamulka Hirshabelle ayaana markaas xilligan la guda gali doonaa iyadoo markaas 5 August lagu balansanaa walow ay dib u dhacday haatan mashruuciin kala duwan ayaa soo gaaray gobolka Hiiraan iyo sidoo kale deegaano kale oo markaas ka tirsan gobolka ee maamulka Hirshabelle doorasho qof iyo cod ayay u diyaar garoobaysaa maadaama koonfur galbeed laga soo qabtay Hirshabelle Galmudug lagu soo kala baxay maamulka saddexaad ee gacanta ku haysa dawladuna waa maamulka Hirshabelle oo doorasho qof iyo cod dhawaan laga qaban doono iyadoo taasi ay jirto xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayaan booqan markaas gudaha maamulka ka furmi doona waxayna doonayaan in deegaano istiraatiiji ah ay markaas la wareegaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo iyagu markaas deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gacanta ku haya waxay markaas gacanta ku hayaan degmada Maxaas degmada Moqokore deegaanka Teedaan deegaano kale oo yimaada degmada Aadan Yabaal oo gobolka Shabeellada Dhexe ka tirsan maamulka Hirshabelle iyadoo ka tirsan degmada Masaajid Cali Gudood ee dhawaan isaga baxeen deegaano fara badan ayayna markaas kaga sugayeen maamulka Hirshabelle lama oga doorasho qof iyo cod sida uga dhici doonto magaalooyinka Beledweyne iyo sidoo kale magaalada Jowhar oo loo aasiyay sidoo kale magaalada Buulaburde magaalada Jalalaqsi ama degmada Jalalaqsi iyo magaalooyin kale ayaana doorashadan loo qaban doonaa intaas hadii aynu kaga gudubno gobolka Hiiraan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay saxiixday mashruuc dhan 245 milyan oo lagu dhisayo wadooyin muhiim ah oo markaas dalka laga hirgelinayo waxa ku jira qodobadan uu saxiixay wasiirka dib u dhiska iyo guryeynta dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Ismaaciil Ayuub markaasi in Somaliland ay qayb ka tahay Somaliland oo markaasi dagaal adag ama markaasi khilaaf adag oo kala dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu daray inay tahay maamul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo gobolada waqooyi galbeed la isku yiraahdo waxaana markaasi ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya laga dhisi doono waa markaasi qayb markaasi ka tirsan dalka ama markaasi maamulka Somaliland magaalada Hargeysa ayaa mashruucan laga hirgelin doonaa wadooyinka iyo sidoo kale buundooyinka iyo sidoo kale waxyaabo kale ayaana lagu dhisi doonaa mashruucan ay maanta ay saxiixeen dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka waa markaasi dib u dhiska iyo guryeynta dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Ismaaciil Ayuub ayaana maanta saxiixay heshiiskaasi lama oga sida Somaliland uga dhaqan gali doono maadaama aan ognayn Somaliland ay 26 December aqoonsi banaad ay ka heshay maamulka Israa'iil oo hogaamiye Benjamin Netanyahu halkaas ay kaga dhawaaqeen in markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay ka madax banaanayeen waxyaabaha ka soo kordha wararkeena dambe ayaan idin kula wadaagay